they took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out. xuquuqdeennii shidaal ayay qaateen. Shidaal tiro badan ayaanu halkaa ku lahayn. waana ay cayriyeen shirkadaheennii shidaalka. waxaanuna rabnaa inaanu xaqeennaas dib u soo ceshanno. waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markan si cad u qiranaya in maamulkiisu doonayo qaadashada shidaalka ceeriin ee Venezuela hodanka ku tahay. isagoo ku doodaya in xukuumadda Caracas duutiday xaq ay ku lahaayeen shidaalka dalkaas. inkastoo khubaradu badankeed ogeyd ajandaha xiisadda Mareykanka iyo Venezuela oo abidkeedba salka ku haysay qadiyadda shidaalka oo qura, haddana maamulka Trump waxa uu bilowgii isku dayay inuu duulaankiisa dalkan u ekaysiiyo dagaal daroogo. boqolaal dad ah ayaana naftooda ku waayay marin habaabinta qorshaha xiisaddan, kuwa oo saarnaa doomaha la sheego in daroogo lagu daabulayay ee Mareykanku ku beegsaday xeebaha Venezuela. waxaa la wariyaa in Venezuela tahay dalka koowaad adduunka ee haysta saliidda kaydka ah ee ugu badan. ha yeeshee dalkani waxa uu la dhibtoonayaa dhaqaale xumada ka soo food saaraysa culaysyada Mareykanka ee lagu xanibay maraakiibta shidaalka dhoofisa oo ah il dhaqaaleedka ugu weyn ee waddankan. ogow Mareykanku waa dalka labaad ee Venezuela u dhoofiso saliidda ceeriin marka laga yimaado Shiinaha. madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa docdiisa Mareykanka ku eedeeyay inay doonayaan qaadashada shidaalka Venezuela, isla markaana ugu yeereen mid ay iyagu iska leeyihiin. Hoy hablé con el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos un rato largo. Mareykanku waxa uu doonayaa qaadashada shidaalkeena oo ay si cad u sheeganayaan lahaanshihiisa. waxaynu maanta markii ugu horeysay maqalnay in Mareykanku sheeganayo lahaanshaha dhulka, madcanta iyo dahabka Venezuela, ayna doonayaan inaanu si dhaqso leh gacantooda ugu celino. dhabtii waa duulaan gumaysi oo aan daahsaarnayn. Pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. madaxweynaha Mareykanka ayaa talaadadii dhaweyd shaaciyay wax loogu yeeray xayiraad dhammaystiran oo ka dhana maraakiibta shidaalka Venezuela, kuwa oo uu amray inaysan ka bixi karin gelina karin dalkaas. talaabadan khubarada sharcigu waxay ugu yeereen mid dagaal iclaamin ah oo garab marsan shuruucda caalamiga ah iyo xornimada ganacsi. waxaa la wariyay in ficilkani dhab u soo jiitay indhaha shuruucyahanka caalamka oo soo jeediyay in si dhab ah loogu fiirsado dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee Venezuela ka dhanka ah, kuwa oo la filayo in Mareykanku goor horeba dembiyo dagaal ku galay. qaramada midoobay oo walaac xooggan ka muujisay talaabooyinka Mareykanka ee Venezuela ayaa dhankeeda iyana ku baaqday in xal diblomaasiyadeed lagu xalliyo xiisaddan. xukuumadda Mareykanka ayaa docdeeda weli sii wada xoojinta dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo weerarada ka dhanka ah doomaha ee xeebaha Venezuela, waxayna haatan u muuqataa in Mareykanku uusan intaa ka badan qarin karin damaciisa shidaal iyo khayraaddoonka ku salaysan ee ka dhanka ah dalyarahan, taas oo docda kale sahli karta in Caracas dunida kale ka hesho kaalmo dhammaystiran oo ay isku difaacdo, maadaama haatan si cad loo wada og yahay in duulaanka Venezuela ka dhanka ahi yahay mid gardarro iyo khayraaddoon uun ku salaysan.